السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan diyaarinayaa maanta caanaha dahabiga dadka oo system immunity ku yar ama difaaca jirkaada hadduu kugu yar yahay caanaha immunity-gaan sameynayaa. inta saxanka waxaa ku jiro hal qaado kafee oo huruud ah, hal qaado kafee oo filfil madow ah, 3 qarfo heel. inta waxaa ku jira 6-7 xabo heel, zanjabiil budo hal qaado kafee, dhageere waxay ku jiraa 6 xabo dhageere iyo inta waxaan ku wataa joosh. halahan oo dhan aan isku dardarayaa. waxaan ka sameynayaa caano dahabi. bakeeriga caanaha intuu ii yaalaa. marka caanahan dahabiga waa caano aad caafimaadka ugu fiican, siiba qofka markuu difaaciisa yaryahay ama jirkaada difaaciisa inaa xoojiso markaa rabtid. caanahan aad ayuu u fiican yahay. subaxdii aa cabi kartaa quraacda kabacdi ama galabtii waa cabi kartaa. habeenkii isku cabina energy badan ayuu ku siinayaa. marka caanaha isbuuci hal mar waa qaadan kartaa ama 2 jeer. waxay ku fiican tahay difaacaada jirkaada ayuu xoojinaa. wuxuu kaa dhigayaa inaad noqonin qof oo waxyaabaha yaryarka hergebka iyo qandhada iyo markii roob da'o ama markii qabow imaado iyo sidaa ugu xanuunsanin. marka difaacaada jirkaada ayaa xoog yeelanaya. marka hadda waa sameyneynaa. alaabtan dhan aan isku soo dardaraa waa isku soo noqoneynaa. marka sidaan u sameynaya hadda nii tusayaa. digsigan yariiskaa soo qaata, qaandaan wataa, koobkii caanaha ku shubeynaa. bismillaah. koobka caanaha markaa ku shubtid dabkaan gaabinaynaa. dabka waxaa geynayaa 4 inuu caanaha kaa burma la rabo. caanaha kastoo kulleynayna. markuu caanaha kastoo kullaado ayaan ku daraynaa alaabtanayte. caanaha nafaqadiisa aad ayaa laga kasaa. asalkiisana wuxuu ka imaaday Hindiya. golden milk ayaa la. hadda waxaan ku darayaa qarfihii. 3 qarfaan ku daray. bismillaah rahmaani rahiim. wax yaraan ku kulleynayaa. isbuuci hal mar 2 mar caanaha cabtid isbedel weyn aa ka helaysaa. difaaca jirkaada system immunity-ga ayuu ku xoojinayaa. marka waxaa noqonaysaa qof oo waxyaabaha yaryarka iyo qabanaynin sida hergebka iyo qandhada iyo waxyaabaha banaanka laga soo qaadi karo. difaacaada jirka markuu xoog leeyahay waxaa noqonaysaa qof markasta xayi ah. jiradaada aaday u yaraanaysaa insha allah. marka waa kan hadda caanaha usoo kullaa rabaa. hadda kastoo waa u dheereeyey 5 gees caanaha soo kullaa rabo. haddana markuu soo kullaado caanaha waa ka gaabinayaa. inii aad loo karkariyo ma la rabo caanaha dahabiga. waa kaasaa kastoo dad ku dara waa ilaalinaysaa. ha ka tagin waayo caano waa dii kale kaa buraa. inaa meesha joogtida la rabaa. channelkan waa Som Green. waa channel caafimaad ah. waxaa ka helaysaa qudaar, ansalaato, juice, smoothie, caanahan golden milk-ga iyo cuntooyinka caafimaad ku fiican. waana association oo Soomaali ah oo waxyaabo badan dadka uga caawino. qaara gym xisaabsan, qaara massage waxaas xisaabsan. aniga nutritionka xisaabsanahay. marka caanaha kastoo soo karkar rabaa oo kullaado oo jeedin inuu soo burma la rabo. marka waa ku daraynaa alaabtii.
isku lalabeynaa. halkaasaa isku darnay. huruudda waxtarkeeda aad iyo aad ay ugu fiican tahay. dadka hindida oo laga amaanay anti inflammatory waaye, anti cancer waaye. marka huruudda nafaqadeeda waxaa soo saarayso filfisha madow. huruudda markasta isticmaalaysid filfisha madow la isticmaal. zanjabiilka asigana sidoo kale calooshaada ugu fiican yahay, asigana anti inflammatory waaye. qarfaha sidoo kale, dhagayaraha sidoo kale. hooyadii caanaha doo sokor ka rabaa. haddaa rabid malabaa ku darsan kartaa, ama sokorta madow, sokorta qasabka aa ku dari kartaa. laakiin aniga sokor la-aan ayaan ku cabaa, ma ku daro sokor. sokor haddaa ku darsanaysa waxaa ku dari kartaa sokorta qasabka laga sameeyey, waa sokorta madow. sokorta hadda iska ilaaliya, cancer ayaa laga helayaa. iyo diabeetna waa laga helaa sokorta cad. marka sokorta cad iska ilaaliya. waa ujeedin caanaha sidoo jaalo u noqonayo. hadda intuu soo karkaran ka hor ayaan ka dejinaya, inuu burma la rabo. markuu kor usoo kaco kasta waa ka dejinaynaa. waa ka dejinaa. soo kici rabaa caanaha. halkaasaa soo karkar rabaa. inuu aada u karkara ma rabi, inuu kor wax yar usoo kaco basaa rabaa. nafaqadan inaa ku dhex jirto huruudii wixii qarfiya isku dare. caanaha ku walaaqay. caanaha looskaa isticmaali kartaa. caanaha loodana waa ku samey kartaa. caana qumbana waa ku samey kartaa haddaa jeceshahay qumbaha. bas wuu soo karkare, waa ka dhigaynaa. halkaasna caanaha saas waay. hadda waa soo miiraa, bakeeriya kusoo shuba, isku soo noqonaynaa. marka waa kaasaa caanaha saas ayuu ka soo baxay. waa ujeediin saas ayuu jaal u yahayaa, u qurux badan yahay. caanaha isbuuci hal maraa la cabaa. caana dahabi waaye, golden milk ayaa lahaa. waa kaasaa saasuu kusoo baxay. qaaciis waa ujeediin kuleel waaye. marka waa mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.